maxaa weeye Kaaba? Ayay Kaana weydiisay Toshihiro, maxaana u ugaarsananaa? Waa bahalo ku nool webiga, ayuu dhahay Rin intuusan Toshihiro jawaabin. Waa bahalo yaryara oo ciyaar badan. Toshihiro ayaa indhaha kala wareejiyey. Sida muuqata, macluumaad badan kama ogid, waa inaan is ilaalinaa. Maxaad ii caawinaysaa? Ayay Kaana weydiisay Rin. Waxaad tahay gabar yar oo caawinaad u baahan, kaagama tegi karo yookayga keliga. Waad naxariis badan tahay, ayuu dhahay Toshihiro isagoo ku jeejeesay Rin. Rin waxa ma uusan dhihin, saddexdooduna waxay u socdeen dhinaca webiga. Kaana waxaa loo sheegay inay gadaal u harto, laakiin way diiday. Laba qof aysa garanay ayaa caawinaya. Waxa kaliya ay samayn karto waa inay ag joogtaa. Kaana waxay maqashay sharkanta biyaha. Markii eegtin waxay aragtay 4 bahalo cagaar ah, kuwaasoo indhahooda bannaanka yaalaan. Waxay aragtay jirkooda iyo tintoodaba inuu bini'aadanku eg yahay, laakiin wejigooda moodin in la isku daray rah iyo sidoo kale diidiin. Kaana markay si fiican u fiirisayna waxay aragtay inuu jirkooda adag yahay, sidoo kalena qoraxdu ay ka dhigisay jirkooda kuwa dhalaalaya. Rin farta ayay ku taagay. Kaanana waxay aragtay inuu madaxooda dalool leeyahay, kaasoo ay biyo ka buuxaan. Rin wuxuu u sheegay waxa kaliya u baahan inay tahay inay biyaha ka daashaan si ay iyagu u dhaqaaqi waayaan. Wuxuu u sheegay Kaaba inay yihiin xayawaan edeb leh, haddii uu foorarsado inay ka daba foorarsan doonaan, taasoo biyaha ka daadin doonta. Kaana madaxa ayay ruxday, laakiin Toshihiro markay eegtay waxay aragtay isagoo si xun u eegaya bahalada. Rin si tartiib ah ayuu bahaladii ugu dhawaaday. Kaana waxay maqashay isagoo si edeb leh u salaamayo, kadibna foorarsanayo. Bahaladii biyaha ku jira way ka soo baxeen, kadibna Rin ayay si layaab leh u eegeen. Rin markii uu arkay inay waxba samayn waayeen, ayuu haddana mar labaad ku ceshay oo wuu foorarsaday. Markaas ayay ahayd markii aragtay Kaana wax aad u layaab badan. Bahaladii oo amoodday sida bini'aadankii inay u fakarayaan ayaa dhagax hoostiis waxay ka soo qaateen biro, kadibna madaxooda ayay saareen. Markii uu madaxooda biyaha ka daadanin, kadib ayay foorarsadeen. Rin wuu ka labalabeeyey. Markaasi wuxuu gartay hawshiisu inaysan u fududayn sidii uu u malaynayay. Kadibna Kaana waxay aragtay isagoo gadaal u baxayo. Dhibaato ayuu soo wadaa, ayuu dhahay Toshihiro. Kaana ma aysan fahmin waxa uu ka wada Toshihiro ilaa ay aragtay Rin oo markaas isku dayay inuu seeftiisa la soo baxo. Bahaladii markaasi way xanaaqeen, indhahoodana way soo baxeen. Kadibna intuusan Rin waxba samaynba way ku soo boodeen. Rinka gadaal ayuu u baxay isagoo isku dayaya inuu weerarkooda ka badbaado. Waa inaan caawinaa, ayay dhahday Kaana. Markaasi Toshihiro muusa dhaqaaqin. Sixirku iga dhammaaday ayuu dhahay, laakiin Kaana ma aysan aaminin, sababtoo ilaa bilowgii Toshihiro nacaybku uu qabo way caddayd. Uma baahnin sixir si aan wax walba u xallino. Kaana kadibna dhagax ayay soo qabsatay. Markaasi Toshihiro gacantiisa ayuu dhabarka ka saaray, wuxuuna dhahay taasi aad ayay uga sii xanaajin doontaa. Markay ku arkaana waxyaabo aadan markaas sawiran doonin ayay kugu samayn doonaan. Markaasay tiri Kaana, maclaamadii darteeda may, sababtoo ah haweeney ayaa tahay. Rin wuu istaagay. 2 ka mid ah ayuuna biyaha ku tuuray. Markaasi midkii saddexaad ayaa dhuunta qabtay, kadibna Rin madaxa ayuu ku dhuftay. Markii uu dhacayna kii afaraad ayaa ku soo booday, kuna kalifay inuu Rin dhulka ku dhaco. Waa inaan caawinaa, waa laga awood batay ayay tiri. Markaas wuxuu yidhi sug, ayuu dhahay Toshihiro asagoo dhinaca Rin u dhaqaaqay. Toshihiro bahaladii ayuu salaamay, kuwaasoo isla markiiba joojiyay dagaalkii, kadibna odaga fiiriyey. Xogaa kadibna sidoo kale salaamay oo foorarsaday. Toshihiro gacanta ayuu horay u fidiyey, bahalkii ugu dhawaana wuu ka lalabeeyey. Xogaa kadibna si tartiiba ayuu gacantiisa u saaray gacantii Toshihiro. Kaana bilowgii horeba waxay aamini weyday inuu Toshihiro awood lahaan jiray. Markii xigtana waxay ahayd inuu socodkeeda gaari jiray. Haddana midda uu sameeyey waxay mid aad uga sii yaabisay. Toshihiro ka gadaal ayuu u baxay, kadibna bahalkii gacantiisa ayuu soo jiiday, taasoo ka go'day. Markaasi Kaana oo gadaal taagneed ayaa waxay aragtay bahalkii indhihiisa oo bannaanka u soo baxaya naxdin darteed. daqiiqado gudahood ayuu bahalka gacantiisii kaga go'day. Markaasna Toshihiro kor ayuu u hayay. Bahaladii kale midkaas gacanta laga gooyay ayay ku soo urureen, ayagoo markaasi ay samaynayaan codad xanuun ka muuqdo. Kaanana markaasi waxay dareemtay naxariis. Rin wuxuu u guurtay dhinaca Toshihiro, kadibna wuu eegay. Wuxuu dhahay ma gacmahooda ayaan ka jarjaraynaa, asagoo weydiinayo. Toshihiro wuxuu u sheegay inuu aamuso, kadibna wuxuu dhahay waa nii soo celin doonaa, ayuu u sheegay bahaladii. Taa beddelkeeda waxaad ii samayn doontaan arrin, soo ma ahan.
bahalka madaxa ayuu ruuxay asoo dhibaato ka muuqato, waana badbaadin doontaa aniga iyo saaxiibaday qofkuu doono cadowgu ha ahaadee. markaasi bahalladii way yeeleen ayagoo uu codad xanuun ka muuqdo ka soo baxayo. Toshihiro gacantii uu ceshay isla markiina bahalkii meesheeda ayuu ku dhajiyey. mid kale gacantiisa soo jiid ayuu dhahay Toshihiro. Ren ayaa dhahay maxaa dhacay, kaliya tusamee sida aan ku dhahay. kuwii kale markay ku faraxsanaayeen saaxiibkooda hadda gacanta u soo laabatay, Ren ayaa wuxuu ka faa'iidaystay intay sii jeedeen, kadibna mid ayuu u gaatamay gacanta ayuuna ka soo jiiday. gacantuu soo jiidayna isla markiiba meesha way ka soo baxday. bahalladii kulligood way soo jeesteen ayagoo markaas naxay, ugu dambeynna xanaaqay, waxayna bilaabeen inay qayliyaan. Renna gadaal ayuu u baxay. intaan miyaa igu filan si galaafskayga laygu sameeyo, ayay weydiisay Kana iyadoo meesheeda ka soo baxday. haa, hadda sida ugu dhaqsiyaa badan meesha aan uga tagno, ayuu dhahay Toshihiro. saddexdoodii gadaal ayay u baxeen. midkii gacanta laga jaray markii ogaaday gacantiisa inaan loo soo celinayn, saaxiibadiis ayuu u soo jeestay saa'id ayuuna u qayliyey. markaasi waxay isku diyaariyeen inay weeraraan, laakiin Toshihiro ayaa gacanta taagay. waxaad iga ballan qaaday aniga iyo saaxiibaday inaanan la dhibaatoon doonin, cidduu doono cadowgu ahaadee. ballanqaad waa ballanqaad. bahalladii markaas way ka labalabeeyeen, markaasna murugo ayaa ka muuqatay, Kanana way ka naxday. saaxiibadiis ayuu u jeestay isagoo markaasi la hadlayo. markuu arkay inay xanaaqsan yihiin oo ay rabaan inay weeraraanna, asaga ayaa ku booday, ilaalinayana Toshihiro. waa inaan dhaqso ku tagnaa, ayuu dhahay Toshihiro. Ren wuu yeelay, kadibna kor ayuu u qaaday Toshihiro. Ren markaasi Kana ayuu eegay, wuxuuna markaasi ku dhahay sida ugu dhaqsiya badan u carar.